madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceero iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo magaalada Hargeysa caasimadda dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland kaga soo safray diyaarad ayaa waxaa si ballaaran magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ugu soo dhaweeyay maamulka gobolka Sanaag ka degmada Ceerigaabo, madaxda dhaqanka ee gobolka iyo dadweynaha magaalada Ceerigaabo. ujeedka safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la xiriira sidii uu soo gabagabeyn lahaa shirweynaha nabadda ee magaalada Ceerigaabo kaasoo diiradda lagu saarayay isku soo dhaweynta nabadda iyo walaaltinimada bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag, isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceero uu fidiyay gogoshaas nabadeed. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa safarkiisa qayb ka ahaa shirgudoonka golayaasha guurtida iyo wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, xubno ka mid ah golaha wasiirada, madax dhaqameed uu ka mid ahaa ugaaska guud ee beelaha dega gobolka Awdal, ugaas Cabdirashiid, ugaas Roble, ugaas Doodi, gudoomiyaha guddida nabadda ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha amniga iyo mas'uuliyiin kale. afayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Xuseen Aadan Ciiga Deyd ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarka madaxweynaha ee gobolka Sanaag. maanta waa maalin qaran oo taariikhi ah oo ku suntanaan doonta maalmaha yididiilada iyo rajada u leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ceero ayaa si rasmi ah u soo gaaray magaalada Ceerigaabo si uu u soo gabagabeeyo ama u soo xidho shirka nabadda Ceerigaabo oo muddo dhowr wiiga ka socday magaalada Ceerigaabo. shirkaas oo ujeedadiisu tahay in la xoojiyo nabadda, isu soo dhawaanshaha, walaalnimada iyo midnimada ummadda Soomaaliland guud ahaan, gaar ahaanna bulshada wada degta magaalada Ceerigaabo. safarku madaxweynuhu maanta ku yimid magaalada Ceerigaabo ma aha socdaal caadi ah, waa safar qaran oo xambaarsan ergo nabadeed iyo kalgacal walaaltinimo, waana arrin tusaale cad u ah sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa ay uga go'an tahay ilaalinta nabadda wadajirka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland, maadaama nabaddu ay tahay saldhigga uu ku dhisan yahay qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii xilka loo dhaariyay 12 bishii 12aad 2024 ayuu ku dhawaaqay gogol nabadeed oo bilaa shuruud ah. maalintaasoo khamiis ahayd, sabtidii oo ahayd markii ugu horreysay uu madaxweynuhu ku fadhiistay xafiiskiisa fadhiistana mar labaad buu ku celiyay gogoshii nabadeed ee bilaa shuruud ahayd. taaynu maanta maxsuulkeeda u joogno iyo inuu madaxweynuhu soo gabagabeeyo halkaasay ka soo bilaabantay. madaxweynuhuna weli wuxuu ku taagan yahay ballanqaadkiisii ay ahayd in meel kasta oo colaadi ka jirto jamhuuriyadda Soomaaliland wadahadal, isu tanaasul iyo walaaltinimo lagu xaliyo. madaxweynuhu wuxuu halkan u yimid si uu u muujiyo in nabaddu aanay ahayn ereyo afka laga yidhaahdo, balse ay u baahan tahay ficil iyo kudhac dhab ah oo uu hogaamiyuhu ku hogaamiyo bulshadiisa dariiqa saxda ah. imaanshaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ceerigaabo waa arrin si dhab ah uga tarjumaysa daacadnimada, dulqaadka iyo aragti qaran oo fog, taasi oo lagu dhisayo kalsoonida, dib u heshiisiinta iyo walaalaynta bulshada reer Ceerigaabo. waxaa xusid mudan madaxweynuhu muddada uu joogo Ceerigaabo wuxuu kulano la yeelan doonaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, wuxuu u kuurgeli doonaa xaaladaha nololeed. laakiinse waxaan jeclay inaan hoosta ka xariiqo safarkan madaxweynuhu uu ku yimid Ceerigaabo waa safar nabad qaran lagu dhisayo ee kii horumarka ma aha. waxaan xaqiijinayaa in madaxweynuhu haddii ilaahay raalli ka noqdo uu ku soo noqon doono gobolka Sanaag iyo gobolka Soolba si uu u dhagax dhigo isla markaana uu magaranaysaa u shaaciyo mashaariic badan oo horumarineed oo nolosha bulshada saameyn ku leh. marka safarka maanta madaxweynuhu kaliya wuxuu ku kooban yahay inuu soo xidho, soo gabagabeeyo gogasha nabadeed. waxaa xusid mudan oo kale in gogasha nabadeed madaxweynuhu ku baaqay ee Ceerigaabo taala ay sii ooli doonto oo aan ahayn mid maalinta berri la xidhi doono. madaxweynaha safarkiisa waxaa ku wehelinayay hogaamo dhaqameedyo magac iyo maamuus weyn ku leh qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu ka mid yahay ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi, ugaas Cabdirashiid, ugaas Roble. waxaa kaloo madaxweynaha la socday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ahna kusimaha gudoomiyaha golaha wakiilada Siciid Giire Faarax, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Axmed Maxamed Cabdi, wasiirka duulista hawada Fuaad Axmed Nuux, wasiirka beeraha Maxamuud Cige Yuusuf, wasiirka macdanta iyo tamarta Axmed Jaamac Barre,
wasiirka dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadanimada la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ismaaciil aadan cismaan guddoomiyaha guddida nabadda jamhuuriyadda somalilan cabdulqaadir jirdaawo cali iyo madaxda ka tirsan xafiiska madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu si kal iyo laaba ugu bogaadinaya islamarkaana ugu mahadnaqayaan dhammaan bulsho weynta Ceerigaabo iyo agagaarkeeda iyo gobolka Sanaag sida qiimaha iyo qaayaha leh ee madaxweynaha u soo dhaweeyeen madaxweynuhu maalmaha uu halkan ku sugan yahay si dhab ugu fuurgali doonaa arrimaha u saldhigga inay nabaddu hana qaado in ummaddu ay soo heshiito inay walaaltinimadu halkii ka sii socoto oo soo noqoto maadaama magaalada Ceerigaabo ay taariikh qiimo badan ku leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay tahay hoyga nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland kala duwan madaxweynuhu berrito ayuu mataqaan biidmillaahi tacaala si rasmi ah u soo xidhi doonaa waxa kale oo aan jecelahay halkan inaan muqarrisa ka iclaamiyo in suldaanka guud ee beeraha wasalgari suldaan Siciid suldaan Cabdisalaan uu isna magaalada Ceerigaabo magaalada madaxda gobolka Sanaag uu maanta yimid si aad iyo aad u ballaaran loo soo dhaweeyay suldaanku waa suldaan qaran oo ku suntan nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada reer Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo si weyn ayaa aadna loogu soo dhaweeyay suldaankuna waan ku mahadnaqaynaa imaanshaha iyo qaybta uu ka yahay nabadgelyada cabdicasiis caydiid cilmiye warbaahinta qaranka magaalada Ceerigaabo xarunta gobolka Sanaag.